السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaheyga ani waayo walaashiina kaltuma cooking waa nin salaami meel kastoo adduunka joogtaan. walaalaheyga janaalkayga kusoo dhawaada, gacmo furan kusoo dhawaada markasta. walaalaheena cusub, walaalaheena hore kulligiin soo dhawaada. walaalahey waxaan iga codsanaa subscribe-na ii saartaan, like ay ii saartaan iyo share garaysaan walaalaheena kale sida u gaaro fiidiyooyigayga. maanta waxaan ii wadaa cake oo aad u macaan badan oo strawberry laga sameynayo ama faroolo midka u taqaanid labadooda. sidaas kugu daray kulli waa arkeysiin iyo inta ka kooban tahay. markaad waxaan ka bilaabaa ukunta. inta waxaan ku haystaa 7 xabo ukun waaye. marka 6 xabo waa ku darsan kartaa, laakiin ana 7 aan ka dhiganaa maxaa yeelay ukunta kasta wax yar way yar tahay. inta waxaan ku haystaa 300 oo gram oo sokor waaye, hal koob waaye. iyadoo blueberry aan soo geliyay marka maantana faroolihii le waaye, waa silsilada isla cabirkii le waaye hore. 1 2 waa kaasoo iyadana aba qaanda camal ay qiyaasanta iyadana. hadda waxaan soo qaaday mashiinadeedii. marka mashiinadeedan ku bilaabaa. inta waxaan ku haystaa vanilya waaye, hal qaando waaye waa kaasa. inta waxaan ku haystaa baking powder waaye, hal qaando waaye. waa kana burka intaan soo dhigtay. marka koobkana ku cabirana. koobkan waxaa waaye 200 gram waaye. waa kaasa koobkii koowaad, ana koobkii labaad. hadda marka waa isku qasaa. makiinada waa tan oo iska leexiyay. inta waxaan ku haystaa strawberry. marka waxaa waaye 750 gram waaye. inta waxaa waa 250 gram, intana 500 gram waaye oo la soo googooyo waaye. halkii strawberry haddii weyn tahay oo kale 4 xabo ka dhigaysaa, haddii saan u yar tahay 2 xabo ka dhiganaysaa. markii yariiskan oo kale 2 xabo ka dhigan kartaa daarjid. hadda sidoo ku dhaafsanaysaa marka adiga doo qaada. marka strawberry-da ku bilaabaa. walaalaheyga waa kana hadda bis waaye. marka waxaan u baahanahay inaan soo qaato geedidan ku shuban lahay. waxaan soo qaaday geedeedii waatana saana u soo samaystay. xaanshada cuntada la saarto markii foornada la gelinayo aan kusoo diyaariyay. marka waa kasa subag iyo warqad le waaye. strawberry waatana saxankan geedka kusoo durjina. marka saana ku yeelaa. intaasaan iska reebay strawberry-da. inta kale saasaan usoo samaystay. foornadeedu way ii shidan tahay, 100 ay sii joogtaa. marka waxaan rabaa 150 inaan kusoo dubo. hawsha markaan bilaabayaan sii shitay foornadeeda. marka waxaan u baahanahay hadda inaan soo dubo 55 daqiiqo ilaa 1 saac. markaan soo bixina isku soo laabanayna walaalaheyga. walaalaheyga waa kana doorshadeeni ما شاء الله سانا أنا نقطي هذا حارة أنا براو كقاعدة وحن سوق قاعدة باستا مركو حارة باستا نسقدرها
هكذا قليل وايه قويان ملاهن strawberry maadaama meesha strawberry ay ku jirto strawberry laga yaabaa inay qoyan tahay laakiin doorshada cajiinkeeda waa qaleel dubitaanka waxay ugu soo qaadatay 1 saac waa kaas ayadana okay waaye laakiin hadda waxaan u baahana inaan ka tago oo soo laabto marka cabaar kadib aan soo laabanaa ilaa 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo markay soo qaboobto isku soo laabanayna walaalahayga haddaan soo laabtay marka hadda waxaan u baahanahay inaan mindi soo qaato marka 15 daqiiqo camal aan soo sugay weli way kulushahay ina laazim waaye iska baraaweeno hadda waxaan u baahanahay baraawe inaan ka qaado waa kaasoo dhexdeeda saasay noqotay marka waxaa waaye saxankan gudan asoos ka dhigayo saxanka fidsan aada ugu fiican doorshadan inshallah waaye ciyaalku kale aad ugu fiican tahay maasha Allah waxa waaye strawberry ka samaysay marka bur kaligiis iyo saliid cadeey ama subag inta isku qastintaa si lahayd waxa ku dhaantado fruutada oo ilmaha ugu qari sidoo kale ciyaalka oo fruutada diidayo kaleeto marka waa kaas walaalahayga hadda doorshadan u baahan tahay kale inaad samaysatid saxanka fidsan aad ugu fiican saxankeena gudan oo Soomaaliya ama doorshadan ku samaysano uma fiicno saxanka kale ku fiican tahay waa kaas walaalay video inta ku eegyahay daawashada video ku mahadsantiin assalaamu calaykum